waxa keenaya inuu qaaradaha adduunyada iskaga tilaabo inuu kaxeeyo ilmihiisa tahriibiyo inuu gaalo u geeyo inuu qaxooti ka dhigo inuu been sheego inay gaarto waxa weeyaan inuu yiraahdo hooyaday baan u dacwoonayaa xaaskayga inay tahay oo meel walba uu kaga dacwoonayo leeyahay xaaskaygi weeye hooya waxa tiraahdaa wiilkan maxaa isku tiin marka lagu yiraahdo waa ay qabaadhe waxa gaarsiinaya waa maal iyo adduunyo uu raadinayo gabadhii uu qabay oo xaaskiisa ahayd inuu yiraahdo waan kala tagno saaxiibnimaan ku wada joognaa oo ayadana meel ay degto asaguna meel dego oo sidaas dhaqaale lagu raadiyo waxa weeyaan waa maalka fitnadiisa ayay tusinaysaa ilmihii la kaxeeyay oo gaalada loo geeyay oo gaaladii akhlaaq xumada ugu dambaysa ay barahayaan in ilmahaas waxa weeyaan la soo kaxayn waayo oo la soo badbaadin waayo waa xoogaaga yarka ah oo cayrta ah oo la qaadanayo oo sandareertada weeye wuxuu halaagay naftiisi wuxuu halaagay ahalkiisi wuxuu halaagay waxa weeye diinkiisi wuxuu meel daran geeyay ilmihiisi wad arkaysaan hadda waxa weeyaan ilmihii iyo tarbiyadoodii iyo akhlaaqdoodii meesha ay marayso wadamadii la oranahay adduunka waa hormareen in la leeyahay fasalka shanaad markuu marahayo ayaa waxa loo dhigahayaa akhlaaq xumo midii ugu xumayd ayaa la barahaya ha ahaada muslim ama ha ahaada gaal qasab ayaa looga dhigahayaa leeyahay kalama bixi kartaan ayaa la leeyahay keena waa in loo dhigaa oo qasab loogu dhigaa dad baa laga yaabaa inay in badan ku sabrahayaan oo leeyahay maxaan samaynaa ma ka hayn karno dhaqaale uma hayno lacagtaana la ka goosanaya biilkaana la ka goosanaya arsaaqdan ilaahay baa qoray subhanahu wa ta'ala wadankiisi oo islaam ah oo dad muslimiin ay joogaan oo tawxiidkii iyo sunnadii iyo khayrkii la barahayo ayuu wuxuu kaga dooranayaa in laylan wa nahaaran ay u dhigaan ilmihiisa gaaladu ay u dhigaan wax ilma loo sheego dhagtooda ku dhacaan waxa ugu xun oo amalu qawmi luut ah qawmi luut acmaashi ay sameeyeen waxaan leeyahay dadka UK degan oo ingiriiska degan waajib idin ku tahay inaad ka soo haajirtaan idinka iyo غيرkiinba kuwa kale oo meelaha ilmahooda ay ku fasaadayaan jooga waajib idin ku tahay sharci ah inaad maanta soo guurtaan oo dalkiini aad u soo laabataan wax aad ku cibro qaadataan oo aad kaga qanacdaan indhihiina waad ku aragteen waana la idin tusay qofkii ilaahay dartii u soo hijrooda oo gaalada uga soo taga oo ilmihiisa inuu badbaadiyo u soo guura ilaahay faraj buu u furayaa subhanahu wa ta'ala ku bishaaraysta dadka muqdisho kulli caasimad dabaqyada dheer UK iyo Ingiriis iyo Yurub kama aynan shaqaynin kuwii dalka aad uga tagteen oo aad tiraahdeen madfaca ayaa ka dul dhacahaya oo aad kaga qaxdeen ayaa shaqeystay ganacsigoodii baa ilaahay u barakeeyay dabaqyada maanta ku yaala muqdisho dadka baasaboorada internationalka wata waxa weeyaan wax ay ku leeyihiin ayaa iska yar qaxooti bay ku nool yihiin ilmahoodii bay gacan galiyeen gablan iyo gabow bay ka qaadeen waxaan leenahay ka soo guura gacmo furan ku soo dhawaada dalkiini imaada ilmihiina soo kaxeeya wixii aad awoodaan inaad soo kaxaysan kuwa badan ilmihii waa laga qaatay gacanna kuma ma hayaan kuwana hadda loo marsiyoonaya in laga qaato shara galab casirkii ayaa waxa Norway iga soo wacday hooyo maalin dhaweytana waa soo wacday markay kula hadlayso way booyaysaa laba cunug bay lahayd waa laga qaatay maxaa lagaaga qaatay cunuga ayaa cunug la diriray iskuulka kula diriray waa wiil iyo gabar wiilkii waxa la yiri wiilkan dilka xagee ka keenay inuu ilmaha dila xagee ka keenay hal baaro hooyada ayaa laga yaabaa inay disho oo dilka ay bartay markaas waxa la yiri 3 bilood baa la haynayaa ilmahan baaritaan baa lagu sameeynaya waa laga qaatay gurigii baa la yimid waa la baarbaaray waxa la yiri ilmaha saa u haysid ma taqaanid kooras baa galaysaa ilmaha sida loo dhaqo loo xanaanaya lagu barahayaa kooraska markuu ku dhamaada lagu soo celinaya kooras 3 bilood ay qaadatay ilmihii si loogu soo celiyo waa ka dhamaad loo yar bay qaybsato way tagtay way dacwootay waxa la yimaya hubin kala la sameeynaya guriga aad ku haynaysid iyo qaabkiisa la soo fiirinaya ilmaha lagu keenaya waana laga celinaya 2 saacadood bay kula joogayaan 2 bilood baa 2 saacadood ay kula joogayaan
marka dambaan fiirinayna shala galab casirkii baa ilmihii loo keenay laba haweenna waa lagu soo daray oo jawaasiis ah oo la leeyahay markay u sheekaynaysa waxay u sheegaysaa bal dhageysta ilmuhu gurigii waa rabaan hooyana waa rabaan ma dhihi karto waxa weeyaan halkaana rabnaa dhaha ma dhihi karto kuwaana la socda oo dhageysanaya saacada loo qabanaya markaasay waxay leedahay marmar baa waxa ii suurta gashay inay intaan kafay iyo shaah u keenay labada haween oo gabdha ilmaha wada ayagoo sheeko ku mashquulay kelimad inaan ku xado ayaa ii suurta gashay waa ilmo 8 jir ah iyo 7 jir wiil iyo gabar weeye kelimad yar aan ku tuurayaa bay leedahay hooyooyinkana waa mashquulinaya haweenka gaalada ah waa la qaato waa laga cishay asbuuca dambaan fiirinayna bay yiraahdeen qofkaasi maxay ku nooshahay oo nolol ah oo ay haysataa sidaas ilmaheedii loo galahayo kuwa gacanta ku haya oo wali aan laga qaadan waxay sugahayaan wadadaas in la marsiyo sugahayaan gaaladii awal yiri si kale ilmaha uma keeli karna albaabada laga furo qaxootiha laga dhiga muslimiinta markay soo dhawaadaana aabaha dan laga ma leh cunuga qaangaarka ah oo dibad hadda keenayna dan laga ma leh qaxootiga ah faracooda dambe ayaa annaga noqonaya wadadii ayay ku joogtaa meeshaasi nool ma taalo waxa la raadinayo loo aadayna waa adduunyadaasina waxa weeyaan waxa muuqata in lagu khasaaradii ugu dambeysay waxaan leenahay walaalayaal ka soo guura oo ka imaada dalkiina imaada ilaahay waa idinku arsaaqaya burwaaqa iyo khayr ba uga dhergaysaan ilmihiina ilaahay subhanahu wa ta'ala waa idin badbaadinaya dadka kale oo lagu imtixaanay maalka inay ka raadiyaan dariiq xaraam ah oo laaluushka raadinaya habeen iyo maalin oo ku raadinaya forakis xaraam ku raadinaya oo xoolahoodii khatar ugu jiraan waxaan leenahay ilaahay baa idinka deeqahaya culimadu waa ka hadleen oo idinku celceliyeen barnaamijkaas faafay oo hantidii ummadda lagu dhacahayo oo xoolihii cid kale gacanta u galayaan qof walba waxaaga ka caynso oo ilaahay ka cabso subxaanahu wa ta'ala waa kasab xaraama khasaare ayuu u badan yahay qarka u saaran yahay dambigiisuna waa kugu baaqi noqonaya wax aadan lahayn ha qaadan qayla dhaanba hadda soo yeeraysa in meelo kamida badan Soomaalida lagu dhacay oo xoolahoodii waxa weeye xoolo aad u fara badan laga dhacay qayla dhaantaas ayaa soo yeeraysa shala galab casirkii ayaa nin wuxuu yiri maanta waxa ii timid hooyo ooyeysa oo oranaysa aniga iyo gabar baan ku darsanay lacagta noocaasa sarifka noocaasa 70,000 ayaa nala ka dhacay waa khasaarnay wax allaaliye waxaan haynaa waa la mooro duugay noo soo duceeya ayay dhawaaqaysaa maalku waa nimco ilaahay ku siiyay ee cadaab ha ka dhigin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiidka saxiixa ithnatan yakrahuhum ibn aadam laba arrimood bani aadamku waa nacahayaan oo way karaahiyeysanahayaan midka koowaad waxa weeyaan almawt والموت خير للمؤمن من الفتنة موتك أي نعيا بني آدم كون نعهيا موتك أيانا أو خير بدن ابن آدم فتنة أسقع وخير بدن أنت وحدرا آمن لهي ودين هذا أكبح لهي أو وحدرا لقبري لها وحويا وفتنوبي لهي لما شرع أيا كو خير بدن أو كو ونعكسن أو كو فيعا مثل اللبادي وحي النبي عليه الصلاة والسلام ويكره قلة المال ابن آدم وحو نعهيا مالكو هدو كو يرعضو أو مال يريد وكعرهيا وحويان نبينا وحي عليه الصلاة والسلام وقلة المال أقل للحساب مالك أو يراده أي حسابته أو يران بدن وقفكم مالك يسوهدو يريهي حسابته اللي حسابنا يا ويرتهي أو مالك حقي سلقى حسابنا هيو لكن مالك هدو بدن يهي حسابته اللي حسابنا يا وي بدنتهي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين